ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويان هذي جنة أي مغلان وحلي وحد دباتة الدنيا لسه درستون ويهالمامين يكو ويبقى هوين إذا مدوك حنون كي قبتك ويدع عيسى صوحدين بيلا هاي لكن مركو النبي يقول هدات صبر لهي جنة إلهي كوكو بدل لها اسكدا بيكوتري بس هل كيسا كدف ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي ينوها عليه الصلاة والسلام أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنين كمدة أيوها مساجد كالنبي قلنا مؤخرة دي سدا بأيود دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين انهلجر عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yiri hatta awradoodu sidaan u muuqan marada yaraysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yiri iyagoo awradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timir uu nabigu siiyay laba timira maanta aad ma ku qadayn lahayd ay barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahlu sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiic labadan qabso war fulaan labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay buudi marka Abu Nabigu igu yiri lima rafa'ta hadhihi ya Abu Hurayra xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaas uu hooyadii baan u geynay Abu Kayri marka Abu Nabigu hooyadaana anaka kuugu dhiibaynay iska cun buu Kayri Abu Hurayra wanika maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiista aan inta badan aan sheegayno isaga wariyo inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha ربيعة مركا رقصوا كمدها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحوير إسقا كشاكين يا هبينك مرقو نبي صوكع عليه الصلاة والسلام إلا أقلدوا مركا الزمن قاسي أقلدوا نحدوا بسقل الله حاجودوا يتوالين ملهين بنانك مقالة مدينة الله بحجري مقالة مدينة بهلا بهلا بدن بيلهي مركا أبو يري ربيعة nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu marka cadaygiisa iyo biyaha weesadan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa caadi ma qabowgeedu markaasaan u keenay nabiga biyihii weesadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga la socdaa buu waan way ilaalinaya nabiga moogta sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya ya Rabiica salni ya Rabiica waxaad doontaa caawa sheego diyaal hadalka Muhammad alayhi salatu wassalaam wa nabige wa nabi ducadiisu mustajaaba ay tahay waa nabi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed buu u yeedho geed waa nabi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad dameerka hadalkiisuu maqlaayay nabi maxamed dameerka waa nabi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada Maka baa la yidhi waa nabi Rabiicow sheegaca waxa doonaysi waasku noqonay kaadi nabi Allah halka abu fariistay ninkan uu nabi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada Madiina aqal kuma leh jaga kuma leh qaraabo kuma leh qareen kuma leh meel wax ka cuna ma haysto hadiyada nabiga loo keena ayuu nabigu ahlu sufahna wax ka siiya
maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timir hadday helaan bay ku iyo abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyay uu ku leeyahay yaa rabiica waxa doonta caawa sheego salni ii sheega caawa waxa doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadhay iimaankaagu halkii la doonayey nebigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati الsujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad i weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fida labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakhata midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriya loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriya loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedka waxayba u taqaanaaba bayt uraaxa aqalka raaxaday u yaqaanaanba baad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumayaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo khaakhatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto uf war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka yaa allah daacada jannada buu nebigu yidhi waa miski
udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay mee ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyo ah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabo u yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay bedilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way bedilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii ma aha wejigoogu kalarkii ma aha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay inninkana suuqa adduunyada markaan tagna maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi asamaa waa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmey geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman in sha allah dhahada qulu in sha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyo ka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galayse muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadceedda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid ah faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nooloo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxaa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteeduu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa
وجهيغو أخرسانيا وحا كقرا نحن الراضيات فلا نسخط أنكو وحانا هيكون ننكو قرالك ووليقود آنا نعرونين ونحن الخالدات فلا نموت أنكو وحانا هي كوي وليقود جنة كوارياي دمشاء عنو صاحب نقونين ونحن الناعمات فلا نبأس أنكو وحانا كوي الله النعمي بلايا يبوسي دباتا آنا أركين طوبى لمن كان لنا وكنا له كنوع هذا النن أن نكون حاصل نقولنا اللي بنبي إليه ابن عباس الله رالك نقول يسقي به به مؤمنك بنك القيامة كتاب كيس قعنت مديك مركز لقصيه واتن آيات القرآن كإلهي كشجي وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كونا دون قاد كوها يستماها إهل كان الدوية أتكوها يستو ابتلاء باللقوسي اختبار واللقوكو إيغيا إن إلهي طاعد يسكو سيجيان يين طاعد إلهي أتكفو لسد باللقوكو إيغيا لكن إهل كاكو الرمت وحويان وكمالك قيامها مؤمنك قعنت مدي كتابك مرقا لقصيو حسابي رفضل الله حسابيو مركا أبو أقد دوما يابا إلهي يري إهل كيسي أو سقيا أيو حقوق أنقون يابا إلهي يري البابك الجنة دي جوغاني كسوغيان بالليري البابك كسوغيان كتاب كيسيبو قعنت مدي كقاتي حساب فضود باللفوديدية حساب فضود وامحي لما بعد البوق جيسي لما بعد هذه لا بعد وخطر إلهي با أسطوري أنا حريستي سيبو هويي أدوم بالله سوك اليوم دونا بنك قيامة بنبي قولي أولورن دونا أديك ربي با كويه رأيه سوكع مرقاسا إلهي عز وجل سترقي سا إلهي هويني دونا مرقاسا إلهي أدونك أولا هلايا هذلك أدونك يا ربي جيسا دحمرا يا مخلوق مقل مايان ملايكتو مقل مايان مقربينتو مقل مايان واللقا قرينا يا وحا إلهي قرسين دونا ذنوبتي أدونك دوشيدا أدونك نوكو قرسني با إلهي وشيك دونا مرقاسا إلهي ورن دونا أدونك يجيو دنبي عينكاس يا عينكا أها مالين هبلايا هلكا أتكو سميسين محسوسا تحي مركز سوليهي ها مركز إلهي ورندونا أدونك دوشيدين وانكو أستوري ما أنت نواكو دنب دافي كتاب كيسا قعنت مدي لغا سينيا لأنه حقا يا جنة ووردا يا مركز الله ينقدك هو أصلا مهدان دنب إلهي مو نقو جرا مي معصومين منهم دنبي ونقا دعيا لكن نحريست إلهي ببالارا إلهي نحريست إسار رجيننا مر والبكقوصا منه داد كان كقوذن من الرحريست إلهي داد كان هاي كقوصن منه مومي كمركا كتاب قال سيو إهل كيسيبو كنا غنيا ابن عباس رضي الله عنهما يري متكستو كتابك قعنت مدق لقسيي حورادي سيبا يريد أوتاغنو سوغيسا مركابو دايمونيا دايمشدو أو كليا أيا قادنا يسالي لتضبات السنة دو بس سنة عروسك هبينك أوه الرسي حاسكا قلبو سوهويو لاباتن دقيقة سامو يجي كرتا بار محاد نجاي بكورة إنداي فراك هاجلين حنا يا يعني ما بهالين يسد أدونك دوش هذا لاباتن دقيقة قروح انت اللي ايغو لا ايغا ددك ادونكا جوغا الهي ما بسينبا فمحابو ملاين غبدة 7 سنة اداونيسد قروحديدي جمالكيغا ابن عباس وحوري لكن ايا داون دونا ما تقانا واكا ادونكا انتو جوغو محارمتا اندهيسا كلابتا كاسا حور العين تداوشديدا كراحيسن دونا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ودايمون ساسو ودايمون مؤمنكم 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع ينو كسو بودي معانقه وقورقورينتا معانقه كليه بودي ابن عباس هدنا 7 سنه كل هدنا هيسن بودي سدا اونو هيسن markuu jannadii arka naciimteedii afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraareysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona
وأفرته وقيردي وقبوغي وباهدي وبكتانتي أفرتها مسكحته ذا كسو دعي دونتا من نعيمك إنتان لك أيا إلهين نسيي مركاسي أفرتها حصوصنا يا أنبال ليدي حق سرى لقد واقي الأرندونا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة ما أنت لقد بلابا جنة واحد كل حليدهين نلل دائمة لما شدا بأركي ميسان نعمة جوكتا نور نقصان دنب أنا لهين دل يرنمو قبو دنب أنا لهين عافي ما قب حنون دنب أنا لهين الله ينسير جنة داسا إلهي نوغو باقا يا مالين والبا ولقو لي حي صلاة مركة تكنيسو مؤذن كولي حي على الصلاة حي على الفلاح جنة دا إسهر كان جنة دا كو حسابتم بشير رمضان با سوق شيء جنة دا إسهر كان صدقات با بحي لقا لي حي جنة دا إسهر كان قرآن با لقو لي كالي آخري جنة دا إسهر كان آخرة وحو بحي با لقو لي حي جنة دا إسهر كان مركب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيسي سوق معلم فرديا أي نمكي مهاجرين تي مكة كسو هجرودي أي سركعوا النبي كوير هذين نبي الله مقال هذا مكة أنكو أنك إيمانين كسو بحني ماء زمزم بانكو هايسانو إيما هين هل كان بيه وإيما مقال هذا مدينة عيلشنا نمان يهودا انت بدن اسكا هايستا لعاقان كو يبسننا ما هايسانو marka ninkii ceelka beero Roma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabatayda muhaajiriinteeda biyaha u fasaxa ka cabaane markaas uu fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaan ku biiliya marka uu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaas uu may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yiri عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكيها وعقل بدنا وإنشي سميل در وحكا أركايي وبصيرة إلهي أوسيي أي هذا النبي قلبي قيسا كل بعي بعنيه بعين الجنة الجنة كتها لعيلك إيقا إيبسو مرقابو نيكي اسكدي ذا نيكي عيلك لها عثمان بان نيكي وتقو يري عيلك آقا هدين لغاير هذا العكو إيبي ما إيبين لهاي هاوان إيبين لها واي قرقر ثمين مركا وعيكوه